Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luqadda Jarmalka. Waxaynu ku soo barannay casharkeennii 18aad bestimmte article oo ah der iyo die iyo das. Waxa aynan ku baran doonaa casharkan waxa loo yaqaano unbestimmte article. Haddaba muxuu yahay unbestimmte article? Casharkan ayaynu ku baran doonaa. Haddaba bestimmte article waxa loo yaqaanaa saddexda article ee luqadda Jarmalku leedahay ee kala ah der, die iyo das. Halka unbestimmte article-na loo yaqaano ein, eine iyo ein. Haddaba aynu wax yar dib ugu noqono maxay yihiin bestimmte article ama saddexda article ee luqadda Jarmalku ay leedahay. Im Deutschen gibt es drei grammatische Geschlechter: maskulin oo loo isticmaalo wixii rag ah, feminin oo iyadana loo isticmaalo wixii weiblich ah ama weiblich ah ee dumar ah, iyo neutrum oo loo isticmaalo wixii sachlich ah ee aan ninna ahayn dhadigna aan ahayn. Es gibt auch drei verschiedene bestimmte Artikel im Deutschen. Haddaba waxaa jira saddex article oo ay Jarmalku leeyihiin oo kala duwan oo kala ah der article. Der wuxuu la socdaa badanaa ama uu weheliyaa magacyada labka ah. Der article die wuxuu isna weheliyaa magacyada dhadigka ah ama dumarka ah. Iyo article-ka das wuxuu badanaa la socdaa sachliche Substantiven, magacyada badanaa aan labka iyo dhadiga midna aan ahayn. Haddaba article-ka der, tusaale ahaan der Mann, der Junge, der Vater. Magacyada sidaas oo kale artikelada waxay qaataan der waxaana loo yaqaanaa maskulin. Article-ka diina die Frau, die Tochter waa dhadig amba waa dumar waxaana loo yaqaanaa feminin amba artikelada dhadiga. Das Kind. Article-ka dasna waxaa loo yaqaanaa sachlich waxaana noqon karaa Mädchen amba Junge ayuu qaadan karaa article-ka das. Si aad si wanaagsan u fahmi kartid saddexdan article dib ugu noqo casharkeennii 18aad. Haddaba aynu soo noqono casharkeenna unbestimmte Artikel. Die unbestimmten Artikel im Deutschen heißen ein, eine, ein. Die unbestimmte Artikel waxaa la yidhaahdaa ein, eine iyo ein. Haddaba aynu eegno jumladahan si aad u fahantaan unbestimmte Artikel wuxuu yahay. Das ist ein Mann. Kaasi waa nin. Der Mann wohnt in Berlin. Ninku wuxuu ku nool yahay Berlin amba magaalada Berlin. Unbestimmte Article-ka waxaad isticmaali kartaa markaad ka hadlaysid qof cayiman oo aanad garanayn. Tusaale ahaan sida halkan inoogu taalaa kaasi waa nin. Qof aad garanaysid maaha, waa qof kaliya aad sheegtay. Ninku wuxuu ku nool yahay Berlin ayaa tiri. Haddaba marka bestimmte Article oo ah der Mann markay der tahay waxaad isticmaali kartaa unbestimmte Article ein. Das ist eine Frau. Taasi waa gabadh. Die Frau geht einkaufen. Gabadhu waxay tegaysaa amba aadaysaa adeeg. Marka bestimmte Article uu yahay die Frau oo ay wadata article-ka die, unbestimmte Article-na wuxuu noqonayaa eine. Tusaalaha saddexaad. Das ist ein Mädchen. Taasi waa inan amba waa inan yar. Das Mädchen spielt. Inantaasi way ciyaaraysaa. Marka bestimmte Article uu yahay
das unbestimmte artikelna wuxuu noqonayaa ein. aynu eegno markaynu ka hadlayno jamac amba wax badan oo plural ah. Das sind Blumen, kuwaasi waa ubaxyo. Die Blumen sind schön, ubaxyadu way qurux badan yihiin. marka aan ka hadlayno bestimmte article die, marka aad ka hadlaysid jamac bestimmte article der iyo die iyo das, wixii jamac ah waxay qaataan die. unbestimmte article markaad ka hadlaysidna male wax plural ama jamac ah. si aad usii fahantaan wuxuu yahay unbestimmte article, aynu usoo qaadana tusaale ahaan artikalka ugu horeeya oo ah der man, ninka, der ball, kubad, der baum, geed. marka unbestimmte article aynu ka hadlaynana intuu waxay qaadanayaan ein. der man wuxuu noqonayaa ein man, der ball waxay noqonaysaa ein ball, der baumna wuxuu noqonayaa ein baum. haddaba aynu eegno isna artikalka labaad ee die. wixii die Frau gabadha, die Katze bisada, die Tasse koobka, waxay noqonayaan isku bedelayaan markay unbestimmte article aynu ka hadlayno eine Frau, eine Katze, eine Tasse. marka aynu ka hadlayno artikalka dasna das Auto, waxay noqonaysaa unbestimmte article markaynu ka hadlayno ein Auto. das Kind isna wuxuu noqonayaa markaynu unbestimmte article ka hadlayno ein Auto. haddaba haddii aad cashirka fahantay, isku day inaad ka jawaabtid labadan su'aalood. das Buch, buuga. das ist meel bannaan, Buch maxaa gelaya meeshaasi unbestimmte article ein mise eine mise ein ayaa gelaya. artikalka uu wato Buch waa das. su-aasha labaad, das Buch, buuga, eine Frau liest, meel bannaan, Buch iyadana maxaa gelaya halkaas ein mise eine mise ein ayaa. haddii aad saxdid iyo haddii aad qaladidba commenti ahaan ayaan kuugu soo sheegi doonaa, ee jawaabta commenti ahaan kusoo qor siday kula tahay. haddaba aynu eegno formkan. bestimmte article-ka masculine haddii ay der tahay wuxuu noqonayaa unbestimmte article-ku ein. feminine haddii uu bestimmte article-ku yahay diina wuxuu noqonayaa eine. neutral ama neutral labadaba waa loo yaqaanaaye haddii uu das yahay wuxuu noqonayaa unbestimmte article ein. haddii uu plural ama jamaco bestimmte article-ku yahay die, unbestimmte article ma leh wax plural ama jamac ah. danke, mahadsanid. waad ku mahadsan tahay intaad i daawatay ee aad i dhegaysatay. waan rajaynayaa inaad dhammaantiin waxaan cashirka ka wada fahanteen. haddii aad cashirka ka heshay, fadlan la wadaaga asxaabtaada jecel in ay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. haddii aad wax su'aalo haysid, waad igu soo weydiin kartaa commenti ahaan. haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kale oo fara badan.